السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كسر دواد عشرة ذي امتحانها برشاد اللغة بايثون أتكلم ساعتين جنرال كسي آر ورسمي. عشر كنا ما أنت وحان سي وذينا functions كني وحان كواركينا هدو اللي ده اسمه برنامج أنكو سمينا إنه void functions ي value returning functions. حيث هوري وحان سؤال إنه تسأل سيدان وكلاها وحان كو شرحني function سيد الله أبو بيسكه void أي طبعا هاي وحان رأينا أبو function كله this time function ka abuurayna waxay noqonaysaa labadaba waa abuuraynaa waxaan arkaynaa sida ay noqonayaan iyo isbarbardhigooda dhamaan waxaan iska tirayaa waxaan leeyahay function kayga waxaan rabaa laba number in isku darto waxaan leeyahay function kayga def add numbers ayaan leeyahay function kayga add numbers number ayaan rabnaa inaan isku darno laba parameter ayaan siinayaa oo ah dabcan labadii number ee isku dari lahayd ayaan rabaa in loo soo gudbiyo waxaan leeyahay marka number 1, number 2 laba number ayaa function kan rabnaa in aan u soo baas gareyno marka laba qaab aan sameyn karaa function kayga void markay tahay iyo markay ay tahay value returning function kan labadaba waa u isticmaali karaa labadaba waa ka dhigi karaa adiga kugu xiran tahay kii aad ka dhigto mar walbana sida aad u isticmaali doonto ay ku xiran tahay waxaan marka hore ka dhigayaa function kayga inay samayso labadii lambar isku darto ka bacdina ay soo daabacdo waxba ayna celin void waxaan ku sheegnay function shaqadii loo diray qabanayso ka bacdina waxba aan soo celinaynin value return function waxaan ku sheegnay function shaqadii loo diray qabanayso ka bacdina soo celinayso value soo celinayso meeshii looga yeeray labadaba hadda ayaan muujinaya waxaan leeyahay hadda labadii lambar ee lagu siiyay number 1 iyo number 1 wixii ku jiray isku kaydar waxaan abuurayaa variable saddexaad oo aan leeyahay sum is equal to number 1 lagu daray number 2 labadii lambar wixii ku jiray markii la isku daro variable la sum iigu shub hadda waxaan dhihi karaa haddii aan rabo bal ii soo daabac wixii ku jiray variable-ka sum ama total is labadii number isku darkooda wuxuu noqonayaa markii aan dhaho variable-ka sum wixii ku jiray ii soo saar sidii aan dabcan isku ogeyn function marka abuurno waxa ma qabanayso macna ma sameynayso ilaa aan u yeero function kayga aan u yeero marka halkaan ayaan ugu yeerayaa waxaan leeyahay function kaygii add numbers ka bacdi labadii number ee aan rabo ayaan u baas gareynaya waxaan leeyahay 10 iyo 20 isku kaydar 10 iyo 20 isku kaydar markii aan dhaho haddii aan dhaho function kan ii execute garee waxay ku tusaysaa sum is 30 inay ku leedahay isku darku waa 30 labada lambar ee u baas garaysay ku xirtaa mar walba haddii aan dhaho 20 iyo 20 isku dar ama 2 iyo 20 isku dar wuxuu idhihi doonaa 20 iyo 2 waaye isku darku marka labadii lambar isku u dirto ayuu mar walba isku dari doonaa labada lambar ee isku daray userka waa dhigi karaa soo gal dabcan haddii aan rabo sidaan oo kale aan samayn karaa haddii aan rabo variables aan abuurtay ayaan ku shubi karaa dhammaantood waa isla meeshii hadda haddii aad fiiriso mar walba function aan u yeero waxay igu qasbaysaa labadii lambar ee aan u diray in ay iyadu soo daabacdo sidaas mar rabi aniga marka qaar waxa u baahan kartaa wixii inta la isugu kaa daro shaqadii lagu qabto natiijadii lagu soo celiyo hadda natiijada aniga ima soo celino shaashada ayaa lagu daabacay marka haddii ka hor aan u baahan lahaa marka la isugu kay dardaro inaan intaan qaado qiimihii resultigii aan file ku xareysto ama resultigii aan soo qaato aan wax kale ku sii daro ama wax kale ka jaro ama wax kale babar dhigo iyo wixii la midka haddii aan ilaa ka horan natiijadii soo laabatay haddii ay ka weyn tahay 40 sidaan samee marka xorriyadaas ah in aan wixii si isticmaali karo la ima siinin oo shaqadii oo dhanba functionka ayaa qabatay markii ay sidaas oo kala tahay functionkayga oo aan rabo inay wax soo celiso marka halkaan inaan wax ku daabaco muhiim ma ahan waxaan samayn karaa markii aan rabo function wax soo celinayso shaqadii way qabatay inay dhahdo natiijadii celi si aan u celino marka waxaan isticmaalnaa keyword ama array la dhaho return functionkan shaqadii ay qabanayd markay dhamaysato ayaan waxaan leenahay return waxaa celisaa sum isku darkii natiijadii meeshii uu ku jiray hadhow markii aan u yeerayay marka laba meel ay badan isbedelayso si fiican u fiiri halkan koo waxaa isbedelayso meeshii halkaan aan ku isticmaalayay printy ama iyadu inay shaqadii qabato oo badanaa printiga iyo safe gareyn iyo wix u badan in aan halkaan ku qabanin shaqadaas oo aan markii aan wixii aan samayn lahaa sameeyo aan dhaho intaan celi waxaan celi qiimahan celi markii la soo celiyo functionka marka aan u yeeraynana waxa isbedelayo sidaan haddii aan ugu yeero oo aan ran dhaho waxa ma isbedelayaan hadaa fiiriso shaqadii way dhacday waxaa loo baas gareeyay functionkaygii 2 iyo 20 labadii variable lagu kala shubay 2 iyo 20 ayaa la isku diray 20 iyo 2 ayaa soo baxday variable-kii sum ayaa lagu shubay 20 celi ayaa la dhahay waxay la mid tahay marka
waxay laatay laba celiya la dhahay waxay la mid tahay anoo halkan labaatay laba ku qoray barnaamijkayga haddii aan hadda ran dhaho ka waran haddii aan ran dhaho maxaa dhacaya wax ma dhacayaan labaatan iyo labadan marka wax macnaa maynan samaynin waxay macno samayn kartaa labaatan iyo labadan haddii aan dhihi lahaa printi labaatan iyo labo soo daawaco la yaqaanaa haddii aan dhaho variable inta abuurto x is equal to labaatan iyo labo ama total is equal to labaatan iyo labo hadhow haddaan rabo totalkii ii safe gareeya ama totalkii ii daabac ama totalkii wax ku dar ama wax la barbar dhig waxyaaba badan aan ku samayn karaa marka markii aad u yeeraysid function nooceedu uu yahay value returning functionka aad u yeeraysid calling value returning function wax soo celinaysa marka aad u yeeraysid lama mid ahaan marka aad u yeeraysid void function marka aad u yeeraysid aan ka hormariyo halkan aan dhaho halkan calling void function meeshaan si fiican u xasuusnaaw dabcan maskaxda ugu hay void function marka aad u yeeraysid callkeeda waxaa la dhahaa stand alone call aan comment ka hormariyo callkeeda waxaa la dhahaa stand alone call keligiis maxaan ka wadnaa functionkii magaceeda qoraysaa kabacdina parameterskii aa u pass garayn lahayd ayaa u pass garaynaysaa bis stand alone call waxaa laga wadaa functionkii magaceeda oo keliya ayaa sheegaysaa kabacdina wixii aa u pass garayn lahayd ayaa u pass garaynaysaa laakiin markii ay tahay functionku value returning function stand alone call keligiisa macno ma samaynayo sida aan aragnay waxay la mid tahay laba lagu daray saddex u baas gareeyo saddex anoo qoray oo kale ayay la mid tahay laba lagu daray saddex afar anoo qoray oo kale ayay la mid tahay marka iyada resulti ay soo celinaysaa resultigaas waxaan rabnaa inaan u diyaarsano si aan uga faa'iideysano laba qaab ugu muhiimsan aan uga faa'iideysan karaa waxaan dhihi karaa functionkii marka loo yeerayo inaan dhex geliyo printi oo aan soo daabaco haddii aan dhaho hadda waxaa isku dartaa 5,6 intan marka waxay samaynaysaa add 5,6 waa function u yeeristii waay markii aan u yeero 5 iyo 6 ama 5 iyo 6 ayaa labada number lagu kala shubi doonaa labada variable number 1 iyo number 2 markii la isku daro 11 return 11 intan marka waxaa bedelayo isku darkoodii functionkii natiijadii ka soo laabatay 11 ayaa intan bedelayso marka print 11 marka dhahdo ama print 11 waxaa soo baxaya sida aan rajaynayno 11 marka waxaan samayn karaa callkii inaan dhex dhigo print si loo soo daabaco natiijada waxaa kaloo samayn karaa variable inaan abuurto oo dhaho total is equal to add numbers waxaa isku dartaa nambaradii waxaan dhihi karaa marka waxaa isku dartaa 3 iyo 4 haddii aad fiiriso functionkii again waa loo yeerayaa intan waxay samaynaysaa functionkii ay u yeeri doontaa functionkii markii loo yeero oo shaqadii ay soo qabsato labadii number la isku soo daro 7 ayaa soo laabatay inta waxaa bedeli doono 7 soo maahan total is equal to 7 anoo dhahay marka la mid tahay 7 iigu shub total hadhow marka maxaa ii furan hoos waxaa ii furan inaan dhihi karo total sidaas ku samee total sidaas yeel total soo bandhig ama wixii la midka waxaan dhihi karaa haddii aan rabo hadhow if total uu ka wan yahay 10 waxaa soo daabacdaa tusaale ahaan wuu weyn yahay numberkan number weyn ayaa soo baxay else waxaa soo daabacdaa small numberku waa yar yahay haddaa fiiris marka fiiri variablekii total qiimihii ku jiray ayaan calculations kale kusii isticmaali karaa oo aan si kale sii yeeli karaa marka waa un iska example ka wada waxba hadda macnaha badan ma samaynayo example ka aan ku qoray laakiin waxaa uga dan leeyahay markii aad xaraysato variable aad ku xaraysato natiijadii soo baxday sida markaan aan sameeyay oo kale functionkii wixii uu soo celiyay markaan xaraysto waxaa suurtagal ii ah in aan sii isticmaali karo oo sii process garayn karo oo sidii aan rabo aan ka yeeli karo marka markii aan u yeerayno function void markii aan u yeerayno waxaan dhahnay u yeeristeedu waa stand alone call maxaa laga wadaa functionka magaceeda iyo wixii aad siin lahayd parameters ama aad u baas garayn lahayd oo keliya markii aad u yeeraysid laakiin value returning function wax soo celinaysa marka aad u yeeraysid iyadu macno ma samaynayo stand alone call macno ma samaynayo resultina ma soo celinayo iyada laba qaabaad samayn kartaa midkood inaad soo daabacdo wixii soo laabtay soo daabac dhahdo haddaad dabcan rabtid inaad daabaco daabac marka aan leeyahay waxaa kaloo samayn kartaa inaad sii faahfaahin karto oo dabcan aad wax kusii dari karto waxaan dhihi karaa tusaale ahaan result is natiijadu waxay noqonaysaa kabacdina functionkii callkiisii inaan u yeero ayaa imaan karta haddaa fiirisa marka
waxaan printii dhex dhigayaa resultii ka soo laabtay function callkeeda iyo qoraal inaan kusii daro oo kale marka waa si qurqurxsan karaa sidii aan raba ayaan yeeli karaa waxaa kaloo samayn kartaa sidii aan sheegnay inaad variable ku xaraysan karto kabacdina aad isticmaali karto adiga ay kugu xiran tahay variable markaa ku xaraysato kabacdi waxa aad u isticmaali lahayd haddii aan dhaho programkan run haddii aan dhaho waxa uu ku tusayaa result is 11 ayuu ku leeyahay marka qasab maaha dabcan inaad dhahdo labadoodii kan dabcan macno sameynaya sidii aan sheegnay oo isla fahanay sidan waxba ma soo celinayso haddii aan isticmaalo add numbers oo stand alone call kaligeeda aan isticmaalo marka waa iska tirayaa maadaama aan ahayn void functionkayga waa iska remove garaynayaa nodekaas adinka ayaan kugu dan lahaa result is 11 ayuu ku leeyahay labadii lambar marka la isku daro userka sida aan hore u sheegay waa dhihi kartaa soo geli labadii lambar ee la isku darayay kabacdina sidaas oo kale ayaa samayn kartaa functionska faa'iidooyinkooda waxaa ka mid ah dabcan programku markuu weyn yahay waa sheegnay in la kala qaybiyo sidoo kale waxaan sheegnay programku marka uu weyn yahay in hal file oo dheer inuu noqdo iyada lafteeda ayaa cillad keeni karto waxaan arki doonaa tusaalaheena xigo in aan functionskeeni oo dhan haddii aan rabno file kale intaan ku xarayno hadhowna aan dhihi karo halkan ka isticmaal ama uga yeer xiisadeena soo socoto waa ku mahadsantihiin waqtigiina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh